السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود واضح أدي هذا وما تنتهين ما أنت واحد وأنا كوبي لباتنك بيش سجالات سبتمبر سنة كلا كون يشان يلا باتنك مقال كانوا حربا إن ذكلا وذاقوه إلهان عمر أو جوابتي مدحوين ترامب كدي مركي لما الموت كهر ودلك كسو جد الصوماليين أو سوين وعاي iyadana uu ku tilmaamay wasaq doonaysa in wadankeena sida aan u maamulno inay noo sheegto doonaysa hadaba ilhaan maxay ugu jawaabtay waan idin la wadaagaya iyo sidoo kalena madaxweyne Trump oo cadaystay argoosiga uu doonayo inuu ka argoosto dadkii horay u maxkamadeeyay ama kuwii baaritaan ku sameeyay gurigiisa Mar-a-Lago arintaasi oo xitaa nin xeer ilaaliyaha uu magacaabay kadib markii uu yiri dambi u soo raaday xeer ilaaliyaha gobolka New York Letitia James oo wax dambiya ku soo waayay uu is-casilay kadibna qof kale uu shalay u magacaabay hadaba wasiirka cadaaladda sidoo kale shalay bartiisa True Social maxaa qoraalka uu ku soo qoray uu yahay uu ku amray uu leeyahay ilaa ay hadda hadal oo kaliya ayaa wadaan laakiin wax ficil ah idinka ma hayo arintaasina waa idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada cumrada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas kow hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina looga halweyn karo xilliyada salaada labo gaarida ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda islaamka saddex barida qaabka loo guto acmaasha cumrada afar umreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ma aan awoodin shan haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha hadaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona wixii faahfaahintaasi dheer fadlan waa WhatsApp number eber 9645492847 mahadsanidin معك أبي ضلحة حفظين القرآن الكريم كي علوم تشريعه ومع لغو برت القرآن الكريم تجويدك أقرسك قرسته هي حاجات تفرتها عاد صدق كلا تكبرن كرتا عربية حسن المسلم كسيرة النبي سفينة النجاة يا تربية الإسلام وحنو أدينا عرورت يدك واوين وصبير مانتا سيادو نقطة حافظ القرآن بلشد يفتينو هرسيدا وحي فافاين تصدير كل شيء تلفون لمرضى هشدك كاغا موقدا waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaareynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online oo ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan Qur'aanka iyo culumta shareecada maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa ka mid ah Qur'aanka hikaada ahadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shareecada qaabka waxbarashada dugsigaanina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan waxaad kala xiriiri kartaa Gmail-ka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda madaxweyne Trump waxaan ogeyn xilligii uu ka soo laabanayay safarkii uu Ingiriiska ku tagay booqashadii rasmiga ahayd isagoo Mareykanka soo gaarina hawada ku soo jiray in bartiisa True Social uu qoraal ku soo qoray uu wadanka Soomaaliya ee ilhaan ay ka soo jeedo si aad ah u dhaleeceynaya oo dhahaya musuqmaasuq iyo dagaalo iyo faqeertinimo ayaa la degtay iyaduna waa qof wasaqa oo doonaysa wadankeena sida aan u maamulno in ay noo sheegto laakiin arintaasi kama yeelayno oo bartiisa True Social ku soo qoray hadaba ilhaan Cumar oo shalay la hadlaysay telefishinka MSNBC ayaa arintaasi ka jawaabtay waxana ay uga jawaabtay sidan soo socota waxyaabihii ay tiri ayaan idin la wadaagaya muuqaalkeedana sidoo kale waa daawan doontaan marka waxay tiri meeshan horay ayaan u soo joogay waxay tiri ma ahan markii ugu horeysay oo Trump aniga uu dhaleeceeyo waxaan ognahay xilligii hore Trump 4 sano madaxweynaha ahaa in sidan oo kale ilhaan uu u daba dhigan jiray marka waxay tiri ma ahan markii ugu horeysay oo bartilmaameed aan u noqdo madaxweynuhuna si midabta koornimo waliba qalalaasa ay ku jirto oo aniga iiga hadlo marka waxay tiri arintaas xitaa waxay sababtay in telefoonna la iga soo waco oo la ii hanjabo dad fara badan hadda xabsi ay ugu jiraan isla markaana ciidamo fara badan oo boolis ah ay ammaankayga ay sugaan marka waxay tiri arintan arin la yaab ah hadda ilama ahan maxaa yeelay madaxweynuhu waxaan u maleynayay arintan inuu ka gudbay isla markaana uu helay qof kale oo uu dhibo laakiin madaxweynuhu markastaba waxa uu buurayaa qalalaaso iyo inuu dadka kala qaybiyo waxayna u muuqataa in arintan uu iska jecel yahay in aniga uu markastaba uu idhaleeceeyo isla markaana sidoo kale qof kasta oo wadankan qaab soo galootiya ku soo galay oo aan Yurub ka soo jeedin inuu markastaba dhaleeceeyo marka ma maqlaysay tiri isagoo ka hadlaya lahjada xaaskiisa Melania waxa wadanka Slovenia ay ka timid Englishka markay ku hadlayso lahjad ay leedahay isla markaana sidoo kale ma arkaysay tiri isagoo ka hadlaya xaaskiisa iyadoo waliba wadankan iyaduna qaab soo galootiya ku soo gashay isla markaana xitaa fikir leh iyadoo aan ahayn qof xafiis loo soo doortay marka waxa ay tiri arintan ah inuu iska jecel yahay markastaba in qof ay soo doorteen 700,000 oo qof
oo deegaanka laga soo doortay degmada shanaad ee gobolka Minnesota isla markaana Congress-ka loo soo doortay isla markaana haysata shahaadada la mid ah midda uu isagu haysto inuu markastaba dhaleeceeyo wax caadi ah ayay la noqotay laakiin waxay tiri waxaan u maleynayaa sidoo kale weerarka Nancy Mace waa markii hadda ay doonayeen in gudiyada ay ka saaraan toddobaadkii la soo dhaafay oo mooshinkaasina uu guuldareystay xildhibaanada Nancy Mace oo South Carolina laga soo doorto ayaa mooshinkaasi keentay marka waxa ay sheegtay in Nancy Mace iyo xubnaha kale isku dayay in gudiyada ay ka saaraan ay markastaba ay banaanka keeneen sida ay stupid u yihiin waa sida iyadu ay hadalka u dhigtay arintaasina waxay tiri waa sharaf darro ay ku tahay wadankeena iyo sidoo kalena dadka madaxdeena u soo doortay dadka noocaasi oo kala ah marka waxa loo baahnaa in uu madaxweyne u noqdo isla markaana xitaa wadamada midowga Yurub safar u tagaya uu hogaaminaya laakiin waxa muuqata sida uusan aqoon ugu lahayn in qof xildhibaan ah oo la soo doortay aan xilka qaadis lagu sameyn karin isla markaana sida hadda Nancy Mace iyo ninkan kale oo Randy ay ugu yeertay markastaba isaga waxay ku leeyihiin waan ku daba joognaa oo xilka qaadis ayaan ku sameynaynaa amaba waan masaafurinayna iyagoo si buuxda u og in qof muwaadin Mareykan aan la masaafurin karin laakiin markastaba arintaasi waxa ay banaanka keenaysaa ceebta Mareykanka marka waxay tiri wadankeena waxa hogaamiya dad doqomo ah waa sida iyadu ay hadalka u dhigtay madaxweynuhu dadka uu golaha wasiirada u doortay inta badan khibrad ma lahan waa dad yes man ah oo waxa uu yiraahdo aan ka soo horjeesan karin haddii ay ka soo horjeestaana sidoo kale xilka uu ka qaadayo adigu haddii aad tababarato oo waxaas qaba tiraado uu ku qabanaya Soomaaliya madaxweynuhu dadka uu soo doortay waa dad taageerayaashiisii ahaa isla markaana si indhala-aan wax kasta xitaa haddii ay dambi yihiin ay ku taageeraya marka waxay tiri dad doqomo ah ayaa wadankeena maamula sidaas darteed waxay tiri dadka Mareykanku arintaasi kuma faraxsana waxaana muuqanaysa ay tiri in arintan ay tahay mid laga murugoodo in dadka noocaasi oo kala ah uu caalamku arkayo inay matalaan marka Ilhaan Cumar sidaasi ay uga jawaabtay hadalkii madaxweyne Trump iyadoo arrimahaasi ka hadlaysayna waxa ay tiri I've been here before. I've been the target of the president in the most vile, bigoted, racist ways that you could imagine. And I've had to have full police detail because of that. So it is surprising that he's back at it because I thought he's moved on and found a new person to harass. But here's, a president that is always unhinged, always deranged, always creating chaos and division. And he seems to have a real obsession with anyone that is an immigrant in this country that is not of European descent. You don't hear him talking about the accent of his wife and the fact that she came here as an immigrant or any of those things, or the fact that she gets to have an opinion even though nobody elected her into office. But he has an objection to a person who does serve over 700,000 constituents in Congress, who's literally elected, has the same certificate as he does. But I think for me is I feel embarrassed for him because in these attacks, what he does, and I think with the likes of Nancy Mace, and whoever that Randy guy is, they expose themselves for how stupid they are. And that is embarrassing for us as a country because these are people who are elected to positions of leadership. He's supposed to be the president of the United States who's heading off to Europe to represent us. When he does, he's uneducated enough to understand that members of Congress can't be impeached. When you have Nancy and Randy saying, we're on it, we're going to impeach her. When they're saying they're going to deport me, knowing full well that you cannot deport an American citizen. What that displays for not just Americans, but folks on an international platform is that our country is being led by idiots. And that is not something that we should be comfortable with as Americans. And that's not something that should make us proud. And so in this moment, I feel great sadness as an American that these are the kind of people that the world gets to see representing us. sidoo kale waxaa jirta gabadhan madaxweynaha dadka la taliya kamid ah laakiin si toos ah aan isaga ula shaqeyn laakiin dadka warka uu ka maqla kamid ah oo la yiraahdo Laura Loomer ayaa iyaduna barteeda X waxa ay ku soo qortay waa in aad ka dhigtaa ururka aqwaan muslimiinka inay yihiin urur argagixiso markaas kadib Ilhaan waxa ay lagu eedeyn karaa ama lagu soo dacweyn karaa inay caawisay amaba taageertay urur argagixiso cadaynta halkaasi ayay taallaa waxaan kaliya u baahanahay in ururkaasi laga dhigo
urur argagixiso marka waxa ay tiri haddii aad ka dhigto urur argagixiso madaxweynaha ayay la hadlaysaa arrintaasi waxay ogolaanaysaa in ilhaan laga saaro kongareeska sidoo kalena waxay soo qortay Rashida Tlaib oo iyaduna gabar asal ahaan Palestine ka soo jeeda oo iyaduna Michigan laga soo doorto oo kongareeska ku jirta dhinaca kale madaxweyne Trump dadkii isaga xilligii uu musharaxa ahaa oo ama dacwada ku soo oogay ama markii gurigiisa la baaray FBI-da ayaa waxa uu doonaya inuu ka argoosto madaxweyne Trump waxa jirtay xeer ilaaliye dowladda federaalku waxa ay gobolada u magacawdaa dacwada ogayaal federaal ah oo dambiyada ka dhaca federaal ahaan u dacweeya goboladuna kuwa u gaar ah oo la soo doorto ayay leeyihiin marka kuwa federaalka madaxweynaha ayaa magacaaba kuwa goboladu ay leeyihiin waa la soo doortaa marka waxaa jira nin Trump uu magacaabay markii hadda xilka uu la wareegay ku dhawaad 9 bilood ka hor oo magaciisa la yiraahdo Eric Siebert waxa uu magacaabay Eastern District of Virginia marka ninkaasi waxa uu rabay oo Trump uu ka doonayay dacwadoogahaas inuu dacwad ku soo oogo xeer ilaaliyaha gobolka New York Letitia James waa haweeneydii ku dacwaysan Trump hantida uu ku leeyahay New York inuu ka been sheegay lacagta ay joogto sidoo bangiyada uu deyn uga helo waatii lacaga fara badan lagu ganaaxay hadda bishii la soo dhaafayna maxkamadda ay lacagihii Trump ay ka dhaaftay kadib markii racfaan uu ka qaatay laakiin laga mamnuucay in New York wax ganacsi uu ka sameeyay 3 sano caruurtiisana min 2 sano iyagana laga mamnuucay arrintaasina wali waa ay taagan tahay marka ninkii xeer ilaaliyaha uu Trump u magacaabay in uu dambi u yeelo Letitia James oo la yiraahdo Eric Siebert waxa uu sheegay baaritaan markii uu ku sameeyay 15 qofna wareysi uu la yeeshay inuu wax dambiye u soo waayay Trump oo jimcihii aqalka cad ka hadlay ayaa waxa uu yiri xilka ayaan ka qaadaya maxaa yeelay Letitia James wax dambiya waa uu u soo waayay isagoo Trump aqalka cad ka hadlay jimcihii waxa uu yiri she has to be guilty waa inay uun dambi leedahay laakiin waxa uu yahay ma aqaan marka qof aan dambi lahayn ayuu doonaya in dambi loo raadiyo marka ninkaasi dacwadoogaa wuxuu yiri qofkan anigu waan baaray dambi waan ku waayay marka waxa uu doonayay in madaxay hore ee FBI-da ninka la yiraahdo James Comey iyo Letitia James ba inuu dambi u soo raadiyo ninkii wuxuu yiri marka labadaba wax dambiya kuma hayo xeer ilaaliyaha Letitia James ayaa waxa uu soo qoray arrintan waxa ay weerar qaawan ay ku tahay isku xukunka sharciga iyo waliba in aad dad shaqada aad uga qaado ilaa iyo in ay jabiyaan ama ay qalloociyaan sharciga maahane sidaas darteed madaxweynaha waxa uu arrintanba ka dhigtay wax iska caadiya isla markaana waa sharci darro ayaa qareenka Letitia James uu soo qoray marka Trump markii jimcihii uu iscasilay ninkii dambiga inuu u raadiyo uu doonayay Letitia James iyo James Comey waxa uu shalay magacaabay haweeney aqalka cad madaxweynaha caawiye u ahayd oo la yiraahdo Lindsey Halligan waxa uu yiri marka haweeneydan ayaa dambi u soo helaysa adigu dambi waad u soo waysay Soomahan okay iska bax marka Trump waxa uu intii ololaha doorashada uu ku jiray waxa uu dhahayay maamulka Biden waxa uu isticmaalaya FBI-da iyo wasaaradda cadaaladda si uu aniga dambi igu yeelo haddana isagii ayaa isticmaalaya wasaaradda cadaaladda iyo waliba FBI-da sida muuqata marka hadda uu u magacaabay booskii uu jimcihii iska casilay Eric Siebert waxa uu magacaabay Lindsey Halligan oo Eastern District of Virginia marka waxa uu doonayaa in uu dambi uu u raadiyo hadda Letitia James iyo sidoo kalena ninka la yiraahdo James Comey oo FBI-da madax ka ah marka qoraalkan ayaa Trump uu xalay bartiisa True Social uu ku soo qoray waxa uu kula hadlayaa wasiirka cadaaladda Pam Bondi marka wuxuu yiri waxaan dib u eegis ku sameeyay in ka badan 30 qoraallo iyo goobaha baraha bulshada waxyaabo la soo dhigay waana wax muhiim ah wuxuu yiri waa isla sheekooyinkii hore oo horey loo shoogi jiray laakiin dhammaantood waxay u muuqdaan inay hadal oo kale yihiin laakiin wax tallaabo ah uma jeedo ilaa hadda waxba lama qaban marka wuxuu leeyahay wasaaradda cadaaladda ilaa hadda dadkii aniga dhibaatada ii geystay oo gurigaygii baaray isla markaana aniga in maxkamadeeyay ilaa hadda wax dambiya waa u heli laadeen marka waa arrin cad oo qaawan oo muuqata oo dhahaya dadkaasi waa in dambi loo yeela maraykankana qof dambi la'aana dambi looma yeeli karo hadda Letitia James waxyaabaha lagu bartilmaameysanayo waxa kamid ah mortgage fraud inay sameysay oo qofku inuu guri uu meel ku leeyahay guri kale uu ka been sheegay waxyaabo sidaas ayuu doonaya in dambi loogu yeelo marka hadalkiisii Trump waa uu sii watay marka waxa uu yiri maxaa laga qabtay James Comey waa ninkii hore madaxa FBI-da marka wuxuu leeyahay Adam Schiff isaguna waa senator California laga soo doorto sanadkii ku jira iyo waliba Letitia calaamad su'aal 3 ayuu saaray saddexdaasi qof ilaa hadda dambi looma hayo xitaa Adam Schiff ninkan senatorka isagana mortgage fraud ayaa lagu haystaa oo arrintaasi ayaa lagu baaraya marka dhammaantoodba wuxuu leeyahay dambi ayay leeyihiin Trump dadkii oo aan dambi lagu helin wuxuu leeyahay dhammaantood waa dambiilayaal ee dambi ha laygu soo raadiyay waa dambiilayaalna uu leeyahay
dembina hala iigu soo raadiyey waa uu leeyahay marka waxa uu ka hadlayaa xeeralaaliyihii jimcihiisa casilay oo dembiga u soo waayay Letitia James iyo Comey waxa uu leeyahay xeeralaaliyahaas waxaa taageeray dimuqraadiyiinta markii aan xeeralaaliyaha Virginia aan u magacaabayay marka waxa uu sheegay in uu ahaa qof Republican oo aad u xun markiisii horeba wuxuu yiri weligiisba ma doonayn shaqadiisa inuu qabto that is why ay dimuqraadiyiinta senatarada ah ay markii la saxinayay ay u buushkareeyeen oo ay u taageereen marka xitaa meediyaha been ayuu u sheegay inuu is casilayo macnaheedu wuxuu leeyahay isagu arintaasi ma ahan is casilin aniga ayaa shaqada ka ceeriyay marka waxa uu leeyahay halkan waxa taala case aad u weyn qareeno fara badan iyo dad fara badan oo sharciga aan falanqeeyana waxa ay leeyihiin meeshan case weyn ayaa yaala sida darteed haweeneyda uu magacaabo Lindsey Halligan ayaa wuxuu leeyahay waa qareen aad u fiican wayna ku jeceshahay wasiirka cadaaladda ayuu la hadlaya wayna ku jeceshahay sida darteed ma doonayo in arintan dib loo sii dhigo intan wixii ka dambeeya waxa ay dilaysaa ayuu yiri sumcadeena iyo sidoo kalena macquulnimadeena credibility-ga sumcadeena marka laba mar ayay xilka qaadis ugu sameeyeen dimuqraadiyiinta ayuu la jeedaa ogoya laba mar ayay xilka qaadis ugu sameeyeen 5 marna waa isoo dacweeyeen marka anigoona wax dambiya lahayn marka justice must be served waa in cadaaladda hadda la helaa president DJT ayuu ku soo gabagabay marka waa magaciisa Donald J Trump marka Trump sida muuqata maba qarsanayaba waxa uu leeyahay dadkii aniga 5 mar in maxkamadeeyay oo dacwad igu soo oogay isla markaana gurigeyga baaray qasrigeyga Mar-a-Lago 2 marna xilka qaadis ugu sameeyay iyaguna waa in dambi loo soo raadiya marka ninkii Trump halkaas uu taagan yahay argosigiisa waa uu cadaystay oo maba qarsanayo marka aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo